boqortooyada Umayyiintu waxay ahayd dawlad Islaami ah oo xukunka la wareegtay kadib khaliifkii afraad ee Ali bin Abi Talib oo ugu dambeeyay khulafadii raashidiinta ahayd. Waxay ahayd dawladii ugu horeysay ee Islaamka oo xukunkeeda ballaarisay isuna qaabikaysiisa boqortooyooyinkii ka jiray dunida oo ay ugu caansanaayeen Rum iyo Furus. Boqortooyada Umayyiintu waxay soo maamushay dhul aad u ballaaran oo ay kamid ahaayeen jasiiradda Carabta oo ay ugu horeysay saldhigii muslimiinta ee magaalooyinka Makka iyo Madiina, Iraq oo ay ugu muhiimsanayd Kuufa iyo Basra, Suuriya oo ay ugu caansanayd magaalada Dimashq oo ahayd caasimadda boqortooyada Umayyiinta, Masar oo ay Qaahire ku jirto, Bariga Afrika, qaybo kamid ah Suudaan, Yurub, qaybo kamid ah Spain iyo Portugal, Aasiya, qaybo kamid ah Turkiga iyo Turkmenistan. Boqortooyada Umayyiinta waxaa aasaasay Muawiya bin Abi Sufyaan, kaas oo ahaa saxaabi kamid ah saxaabadii Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Afgambi ay sameeyeen Cabbaasiyiinta ayaa 750kii ay ku guuleysteen inay la wareegaan xukunkii Umayyiinta, taas oo keentay dhamaadkii boqortooyada Umayyiinta.